ikhwatii fi lislaam waxaan la hadlayaa ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meeshaan hadda taagannahay waad arkaysaan burburkaan masaajidkan ku dhacay dhinacayna gadaashayna hortayna dhinacayna kale dhinaca kale oo horahayna oo horta nooga aadan oo hanti muxuu ahay fara badan ay ku baaba'day waxaan marka ugu horraysa tacsi u duraynaa dadweynihii ama ummaddii islaamka ahayd ee halka ku halaagsantay ku baaba'day ayaan waxaan u diraynaa tacsiyo oon leennahay acdama allaahu ujuurakum وغفر لموتاكم وأحسن عزاءكم ayaan leennahay horta markuu ugu horraysa tacsi baan idin soo dirnay tacsida khaas ahaan dadkii halka ka wax ku yeeloobay iyo ahaladoodii iyo mujtamaca soomaaliyeed oo dhanba waxaanu leennahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayaan leennahay waxaan ku daraynaa muxuu ahay rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii musiibo ay dhacdo maa min musiibatin musiibo ma jirto tusiiba oo muslim asiibaysa fayaquul ama maa min axadin tusiiba musiibatun fayaquulu innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allahuma ajurnaa fii musiibatina haadih wa acqibnaa minhaa cuqba xasana وأخلف لنا ما هو خير منها إلا أخلف الله ما هو خير منه هذه روح مصيبة أو كل عضو أو يراها إن الله وإنا إليه راجعون إلهي يوم مصيبة نجا أجر سي هدو يراهو إلهي واك أجر سي يا أبو مصيبة دي عضيوك أجر سيها مركا وعن ربنا إن هذا إلو بننا ضدك أي وحجارين لما ما يوحنا جارين كليين معها ومضى ما يجارين وضن كي وحجارين waa arkaysaa hantida burburtay waad arkaysaan masaajidkii waad arkaysaan waddadii waad arkaysaan dhaqaalihii waad arkaysaan intii dad dhimatay dad badan baa dhintay marka sidaa daraaddeeda waa tacsi guud weeye gaar ahaan haddana waxaa loo sii diraa dadkii ay musiibadu sida gaarkaa u taabatay waxaan markaa u caddaynaynaa ummadda falalka caynkaana oo saan u dhacay dadka sameeyey oo sheeganaya inay yihiin mujaahidiin hadda mujaahid ruux jihaadaya ma masaajidow jebiyaa ma dad masaakiina howlaayaa ma dadka abriyada oo berimageydada iyou dilaa idinka laftirkiinaaba ka jawaabi kara marka ma dilo ruux muslima masaajid ma baaba'sho ruux muslimahoo mujaahida xataa kaan mujaahidka ahayn oo iska socda oo faasiqa oo gaalka masaajid ma taabto gaaladu masaajidaha ma taabato muslimiintuna kaniisadaha ma taabato lama taabto maxaa yeelay in kaniisadaha la taaban diinta islaamkaa ku dhisan inaan baadiriyaasha la dilin inaan culummada la dilin inaan masaajidaha aan la baabi'in intaasoo dhan diinta islaamka ayaa ku dhisan waxyaalaha muxaramaadka ayay ka mid yihiin wuxuu yidhi ilaahay asagoo ka hadlaya dhibaatada masaajidaha loo geysanayo ama ruuxa masaajidka dhibaatada ku samaynaya waman adlamu miman manaca masaajid allaahi an yudkara fiiha ismuhu wasacaa fii kharaabiha ulaa'ika maa kaana lahum an yadkhuluuha ilaa khaa'ifiina lahum fi dunyaa khizyun walahum fi laakhirati cadaabun muhiim yaa ka dulmi badan yaa ka saqajaansan ruuxii muxuu ahay masaajidku xadgudbay oo masaajid dulmi ku sameeyey oo masaajid jebiyey oo masaajid dad ku dilay oo ka shaqeeya masaajidka inuu kharaab noqdo sidaanoo kale markaa ruux ka dulmi badan ma jiro kana shaqeeya inay baaba'do ruux ka dulmi badan ma jiro ruux ka fasahaad badan ma jiro ruux ka caqli daran ma jiro ruux ka saqajaansan ma jiro mana aha muxuu ahaa jihaadna maaha waa ka baxsan tahay jihaad waa ka baxsan tahay diin waa ka baxsan tahay insaaninimo waa ka baxsan tahay nabadgelyo waa ka baxsan tahay muxuu ijtimaacinimo wax ay yacni muslin iyo gaalo wax qaba falka kan oo gadaashayda oo garabkayga oo hortayda wax qaba ma jiraan gaalana ma qabto muslimna ma qabo ayagaa og qoladii waxaan sameeyeen cidda ay ku abtirsanayaan ayagaa yaqaanaan
laakiin annaga ahaan markaan ka hadlayno amaan diinta ka hadlayno ama dhaqanka ka hadlayno ama maaragtay dawladnimada aan ka hadlayno ama caalamiyan aanu hadlayno arrintaanoo kaleentood meel ay ka jirto ma jirto oo masaajidyaha laga baabi'iyo xataa gaaladii oo shuuciyadda ahayd ayaan sidaanoo kale samay karin cid samay karta ma jirto marka ummadda Soomaali ha ogaato in falalkan inaysan ahayn fal jihaad inaysan ahayn fal diineed ayagana qoladii samaysana waa uga nasiixaynaynaa inay ayagana isdilaan xoolahana ay baabi'iyaan masaajidana ay baaba'shaan ee ay sheegtaan diin baan ku taagannahay waa uga nasiixaynaynaa yaysan sheegan yaysanna ku dhaqmin hana iska daayaano weliba waxaan leennahay in badan oo falalkan ku dhaqmi jirtay way ka tageen in yar baa ku hadhay iyo in juhalaa oo aan diinta islaamka aan aqoon u lahayn intii diinta islaamka aqoon u lanahay iska dayso intii jahalaana oo juhaalana dib ha uga soo naqdaano fikraddan cariiriga ah oo meel ay ka hirgelayso meel ay waafaqsan tahay aysan jirin cid ku dhaqanta aysan jirin ha ka noqdaano ha ka tagaano ummadda Soomaalina maxuu ha ogaato ummadda islaamka ha ogaato falalkan ha ogaadaano inayna wax diin ku saan leh ama diin ku raad leh aysan ahayn ma aqaano aniga hadda cid sheegatay iyo cid aan sheegan ma kala sheegay marka laakiin cid sheegatana sax maaha cid la shibanna sax ma aha falalkan waa falal guracan oo diinta islaamka aan raad ku lahayn oo nabadgelyada raad ku lahayn oo wada noolaashada aan rabad ku lahayn dawladnimada aan qayb ku lahayn wax ay nidaama ay waafaqsan tahay ma jirto waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa marka inay intaa naga kaafiso in aan diinta islaamka aan isugu soo noqonno beenna aanaan u sheegin oo aanaan diinta aanaan ka been sheegin diintuna waa nasiixo addiinu annasiixatu nabiga calayhi salaatu wasalaam diintu waa nasiixo lilaahi ilaahay loo nasiixayo rasuulkiisa loo nasiixayo kitaabkiisa loo nasiixayo caamada loo nasiixayo madaxda loo nasiixayo cid walba siday diinta tahay in wax loogu sheego muslimna waxaa ama muslim waxaa ama muumin ruuxi carabkiisa iyo gacantiisa laga nabad galo marka hadalkaygana waxaan ku soo gulaadadayaa المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته